gabdho hada kadib sidaan u sameysta bur dhexda shukulaato ugu jirto casriye iyo wax waliba ka dhigan kartaa caruurtan aad ay ugu heli doonaan aaduna u fudud yahay marka hore waxaa isticmaalayaa bur qiyaasteyda ah sokor yar aan kusoo darsaday caano powder iyo hal qaando faxis ama leewit ah hal qaando baking powder ah wax yar oo cusbo ah intay qaleelka yihiin aan isku wada qasayaa waxaa kaloo kusoo darsaday hal xabo ukun ah waxaa kaloo ku qasayaa biyo qandac ah waa isku wada cajimay then waxaan kusoo darsanaa saliid haddana mar labaad si fiican u soo cajimayaa burka waxaa laga rabaa inuu sidaan jileec u ahaado ugu yaraan hal saac daboolaa soo u qamiiro waa kana hal saac kadib waa isku celcelinaa aarida dhan waa ka bixinaa laba qayb u qaybsaday qaybta koowaad soo fidsaday sidaana laga rabaa xajmigiisa inuu ahaado shukulaatadan aan isticmaalayaa shukulaato walba haysid waa ku bedelan kartaa bur soo fidiyaa sidoo kale kor ka soo saaray waan isla wada ekaysiiyey dhinacyada dhan baashaan isticmaala ku jarnaa waxay haystada ku jaran kartaa muhiimadda waa inuu dhinacyada ka feednaanin oo si fiican isku haystaa si hadhoodii saliidka galin ama shukulaatada ay u soo bixin sidaana laga rabaa hadda nus saac qamiirina inta aan dubin waa kana nus saac kadib sidaana u soo faxay then saliid normal ku dubayaa waa kaasa oo sidaas laga rabaa u gaduudiyay asidan sidaana ku soo wada dhameeyay hadeertan diyaar waaye inta waxaa ku haystaa sokor soo shiiday sidaana uu kor ugu shubayaa maasha Allah lagama sheekeyn karaa faarahan